السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم داوديال مركز توطافها عالمka joogtaan ku soo dhawaada warka timintoona waxaana barnaamijka la socodsiinaya aniga ah Sakariya Sheekh Cabdi qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah talada ururinta taariikhda nabad horeyaasha ogaadeenaya oo tababar uga furmay xafiiska warfaafinta jawxiga gobolka Faafan dawladda federaalka Soomaaliya oo digniin ka soo saartay halista ku soo foole Hiiraan Sacuudiga oo malaayiin dollar ku bixinaya dalka Shiinaha haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan aan ku bilownay dalada ururinta taariikhda ogaadeenaya oo tababar uga furmay xafiiska warfaafinta jawxiga gobolka Faafan faahfaahinta warkana waxay noo hayay wariye Axmed Siyaad waxa xafiiska warfaafinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan tababar heer sare ah uga furmay dalada ururinta iyo taariikhda naftood horeyaasha iyo halganka ogaadeenaya oo ka dhisan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan tababarkan oo ah kobcinta iyo garaadka kor u qaadista sooyaalka taariikheed iyo guud ahaan halgamadii soo maray dalka ogaadeenaya ayaa waxa bixinaya qaar kamid ah gudida fulinta jawxo oo u horeeyo la taliyaha gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya jawxo mudane Janaraal Cabdullaahi Mukhtaar talada oo u dhisan ururinta taariikhda ogaadeenaya ayaa tababar kala duwan oo ku saabsan ururinta iyo xafidada taariikhda wadanka ayaa bilaabi doonta hadii uu rabi dhaho hawlihii loo igmaday tababarkan oo ay ka soo qayb galeen xubno dhowr ah ayaa ku soo gabagaboobay jawi degan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay halis ka iman karta fatahaada wabiga Juba wariyeena Farxiya Sheekh Ismaaciil Cali dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin ku aadan fatahaada weyn oo saameyn kara wabiga Shabeelle kadib markii roob lixaad lahay ka deen dhulka sare ee Soomaali galbeed waxa laga cabsi qabaa in asbuucan dabayaaqadiisa ay fatahaado sameeyaan wabiyada Juba iyo Shabeelle waxaana muuqata calaamado arintaasi muujinaya oo ay ka mid yihiin heerka biyaha wabiga sare u kacay hay'adda macluumaadka dhulka iyo biyaha Soomaaliyeed ee FAO ayaa warbixin ay soo saareen waxa lagu sheegay in 2 ilaa 3 maalmood ay soo socdo wabiga Shabeelle ku fatihi karo beledweyne iyo deegaanada kale uu maro waxa si weyn loogu digay dadka degan meelaha u nugul in biyaha wabiga soo gaaraan inay si deganaadaan aagaasi ayadoo loogu baaqay in taxaddar weyn muujiyaan arintan ayaa imaanaysa xilli uu biyaha wabiga kor u kacay 1.25 mitir taasi oo dhawaan galaafan karta nolosha dad badan iyadoo fatahaadu ku faafi karto sida laga cabsi qabo dhul ballaaran oo la qiyaasi karin wabiga ayaa hadda fatahaad ka sameeyay deegaano badan oo ku yaal deegaanka Soomaalida isagoo dhibaato weyn u geystay dhul beereed 2 sano ka hor ayay ahayd markii ay fatahaad saameyn xooggan reebtay ka dhacday magaalada beledweyne taasi oo dad badan ku dhinteen ayna hanti badan ku burburtay waxaana u muuqatay inaan wali cashar laga baran dhibaatooyinka hore ee sabeen fatahaaduhu dawladda Sacuudiga ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa shirkadda shidaalka ee dalka Shiinaha faahfaahinta warkana waxay noo hayay wariyeena Ogbaad Barkhadle shirkadda shidaalka Sacuudiga ee Aramco ayaa shaacisay in maalgashi ballaaran oo balaayiin dollar ku kacaya ay ku maalgashan doonto dalka Shiinaha shirkadda ayaa bayaan ku sheegtay in dalkaasi ay ka dhisayso warshado shidaalka sifeeya shirkaddan ayaa sidoo kale waxay saami ka iibsatay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi iyadoona 10% saami dhan ka iibsatay shirkadda Rongjeng Petrochemical una dhiganta 3.6 bilyan oo dollar Aramco ayaa dalkaasi maalintii u dhoofin doonta 480,000 oo foosto si shirkadaha ay heshiiska la gashay u sifeeyaan shidaalkeeda shirkaddan ayaa 12 bishan shaacisay in ay diiwaan gelisay faa'iido dhan 161.1 bilyan oo dollar oo ay faa'iiday sanadkii hore 2022 kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine duulaankan ayaa la fahansan yahay in dunida uu horseeday sicir barar baahsan iyadoona uu kiciyay kobaca dhaqaalaha ugu sarreeya ee dhoofinta shidaalka adduunka Sacuudiga oo muddo dheer saaxiib la ahaa Mareykanka ayaa haatan u muuqda mid ka sii furfuranaya Washington
واتاي داوديال waxaa inta nagu dhan barnaamijkeena tabintoona waxaana nagala socotaan baraha aan ku leenahay internetka Facebook Twitter YouTube iyo Instagram inta barnaamijkan mid lamid ah kulmi doona waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo Ramadan Kariim